afar qof oo Soomaali ah oo laba kamid ah la sheegay in ay walaalo ahaayeen ayaa lagu dilay gobolka Tenerife ee dalkaasi Kenya kuwaas oo sidoo kale la sheegay in meedkooda la gubay dhacdadaas oo aad looga naxay ayaa waxa la sheegay in ay ka dambeeyeen rag hubeysan oo ilaa hadda aan la garan cidda ay yihiin kuwaas oo dilka kadib goobta ka baxsaday labada qof ee walaalaha ah kana mid ahaa afarta qof ee la dilay ayaa magacyadooda lagu kala sheegay Xuseen Cali iyo Mustafa Cali waxaana dadka ku sugan ismaamulka Tenerife ee wadanka Kenya ay sheegeen in meedkooda la gubay si aan loo aqoonsan labada qof ee la dilay ayaa iyana lagu sheegay inay ahaayeen darawallo ka shaqeynaya inta u dhaxaysa magaalooyinka Garcia iyo Garissa isla markaana meedkooda la gubay dilka kadib ehelada marxuumiinta la dilay ayaa sheegay in ay aad uga argagaxeen dilka loo geystay wiilashooda isla markaana ay cadaalad hadda ay dalbanayaan wararka qaar ee la helayo ayaa sheegaya in ragga hubeysan ee falkani geystay ay markii hore iska dhigayeen askar hayeeshee ay si bareera afarta qof ee Soomaalida ahaa ay u dileen kadibna ay u gubeen meedkooda taliyaha booliiska ismaamulka Tenerife ee dalkaasi Kenya ayaa ballan qaaday in baaritaano dhab ah ay ku sameyn doonaan dhacdadan xun isla markaana ay cadaalad u keeni doonaan dadkii ka dambeeyay dilkaasi oo markii hore isku ekeysiyay inay yihiin ciidamada booliiska wadanka Kenya